الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إلهي سبحانه وتعالى walayaal mahad iska leh. waxaan wax yar ka taaban doonaa sida muxaadaradu ay tahay salafkii ridwaanullaahi calayhim iyo qiyaamu leylka. qiyaamu leylka waa istaagga habeenkii marka af soomaali laga dhigo, habeenkii oo salaad loo istaago. waxaa kale oo lagu magacaabaa tahajud. tahajudkuna waxa weeye qofka hurdada ka soo kaca oo u istaaga salaada. sidaas ayaa almutahajid ay culimada luqadu ku tilmaameen oo waxay yidhaahdeen altahajudu bilqiyaami min annawm. sidaasay dhaheen dadkii taabiciinta ahaa ee qur-aanka fasiray, mujaahid iyo calqama iyo aswad iyo kayrkoodba. altahajudu bacda annawm waxa weeye soo kicitaan qofku uu soo kaco hurdo kadib oo uu salaad u istaago. sidaas darteed waxaa la odhan karaa tahajud laguma tilmaamayo haddaan la seexan, ma aha tahajud. yacni qiyaamo leyl wuu soo geli karaa wixii cishaha ka dambeeya, laakiin tahajudka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faray nebigiisa calayhi salaatu wasalaam. dadka muslimiintana alle subxaanahu wa tacaala sunno uu u jideeyey ah dadka saalixiinta addoommadiisa alle subxaanahu wa tacaala u cibaadaysta habeenkii waa tahajud bacda annawm. markay seexdaan kadib inay hurdadii naftooda ka soo toosiyaan, hurdadu markay macaanayd naftooda ay ka soo gooyaan, ay ka soo kacaan firaashkooda iyo gogoshooda si ay alle subxaanahu wa tacaala u hor istaagaan, ay u baryaan alle subxaanahu wa tacaala. saas ayaa waxaa ku tusinaysa gogosha inaanay dhinaca ku qaban karin aayadda kale oo ku jirta suurata alif lam mim tanziil ama suuratu sajda ee alle subxaanahu wa tacaala uu leeyahay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa damacan wmima razaqnaahum yunfiquun. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay gogosha inaanay dhinacoodu qaban karin, oo ama ha noqoto culimmada qaarkood say ku fasireen maqribka kadib inaanay cisho salaada hurdo u degdegihayn ee ay tukanayaan, ama ha noqoto inayan gogosha ku negaan karin oo markay seexdaan kadib oo dadku guryahooda aadaan ay hurdada ugu jecel yihiin, ay hurdaduna ugu macaan tahay, rag iyo dumarba ayaanay gogosha qaban karin. oo iyagiyo gogoshii waxaa ka dhaxeeya is-afgaranwaa, jafwa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tiri tatajaafa junuubuhum. jafwada waxaa le labada qof markay isqaban waayaan oo inay is-afgaranayn, marka qofkan dhinaciisa mu'minka ah ama gabadhan mu'minada iyo gogoshii isma afgaranaya, is-afgaranwaa baa ka dhaxeeyaoo kuma macaansanayo, waayo wax ka macaan ayuu dareemayaa. maxay tahay waxa ka macaan? hurdada oo uu rabaa inuu u tooso. waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala munaajaadkiisa, alle subxaanahu wa tacala inuu hor istaago oo yadcuuna rabbahum, siduu alle subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay, yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan. cabsi ayay alle subxaanahu wa tacaala ka qabaan, cadaabkiisa iyo caradiisa bay ka baqayaan, dunuubtooday ka baqayaan. saas darteed ayay alle subxaanahu wa tacaala rabaan inay hor istaagaan. waxay rabaan oy weydiisanayaan oo ay tamcayaan naxariistiisa iyo jannadiisa alle subxaanahu wa tacaala. waana kan alle subxaanahu wa tacaala aayado kale ku tilmaamay oo yidhi wadcuuhu khawfan wa tamacan ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin. ilaahay ku barya
idinkoo rajaynaya naxariistiisa iyo jannadiisa, idinkoo ka baqaya oo ka cabsi qabo ka walwalsan naartiisa. dadka mu'miniintaana waa dad walwalsan sidooda, qalbigoodu dad walwalsan yahay wey. alla subxaanahu wa tacaala siduu ku tilmaamay waladiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun ina cadaaba rabbihim gayru ma'muun. alla subxaanahu wa tacaala siduu yidhi walaqad aataynaa muusa wahaaruna alfurqaana wadiyaa'an wadikran lilmuttaqiin aladiina yakhshawna rabbahum bilgaybi wahum min asaacati mushfiquun. waa dad welwelsanoo cabsanaya wey. siduu alla subxaana wa tacaala kaga warramay aakhiro markay tagaanoo janno galaan inay leeyihiin inaa kunaa qablu fii ahlina mushfiqiin famana allahu calayna wawaqaana cadaaba asamuum inaa kuna min qablu nadcuuhu inahu huwa albaru araxiim. bilowgu waxa weeye marka walaalayaal tahajud ama qiyaamu lleyl waxa weeye salaad loo istaago la taagan yahay, maaledoo la fadhiyo loo taagan yahay oo la tukanayo, oo habeenkii la tukanayo, oo qur'aankiina la akhrinayo, alla subxaanahu wa tacaala loogu cibaadaysanayo kalaamkiisii, akhrintiisa iyo ku celcelintiisa iyo fahamkiisa. oo alla subxaanahu wa tacaala qur'aanka qaabka loo akhrinayana uu sheegay oo ah qaab tartiil ah. tartiilku waratil ilqur'aana tartiilan, si tartiibah oo calaa mahal ah oo kelimad walba la garan karo meeshay ka soo baxday iyo meeshay ku dhacayso iyo sida u fariisanayso la fahmi karo ayaa la yidhaahdaa tartiil. qaabkaas weeye marka qiyaamu leylka maqsuudkiisa loo jeedaa. waa salaad la tukanayo habeenkii wixii ka bilowda cishaa, qofku markuu seexdo kadib uu soo kaco, qur'aankana uu akhrinayo, uuna taagan yahay, allana subxaanahu wa tacaala dartiis uu u taagan yahay, wax kale aanay ahayn. yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan wa mima razaqnaahum yunfiquun. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka arrinka saasa wuxuu u ballanqaaday waxaanu dadka kale u ballanqaaday alla subxaanahu wa tacaala. waxaas waxa weeye quratu cayn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u qariyey ee janno uu kuuga abaalgudo. maxaa dhacay? waxay soo istaageen habeenkii markii dadku ay hurdeen oo ay hurdada ku macaansanayeen u cararayeen hurdada, ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u istaageen, hurdadoodii ka tageen, gogoshoodii ka tageen. ninku wuxuu ka tegayaa xaaskiisii uu jeclaa, uu gogosheeda jiifay ayuu ka soo toosayaa. gabadhu ninkeedii ay jeclayd oo gogosha ay la jiiftay, dugaalkii ay ku jirtay iyo bustihii ay huwanayd ayay ka soo dhex baxaysaa. markaasay ilaahay subxaanahu wa tacaala tawasaysato alle subxaana wa tacala u istaagay. suurtoobi karto inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka saas u celiyo. arrinka uu ilaahay subxaanahu wa tacaala aadka ugu abaalgudaya arrinkaa waxaa weeye allana subxana wa tacala dadka mu'miniinta uu u farayo si gaara ugu yeerayo in loo tartamo isagoon ku waajib yeelin, faralna kaga dhigin alle subxaanahu wa tacaala. waxa weeye waa arrin imtixaano adag wey. alsalaatu billeyli wannaasu niyaam ayaa nabiga calayh salaatu wasalaam axaadiistiisa aada ugu badan. wuxuu leeyahay nabigu calayh salaatu wasalaam xadiiska koowaad, 3 xadiis baan ka soo qaadanayna uu ku xusayo nabigu calayhi salaatu wasalaam salaatu billeyli wannaasu niyaam inay tahay shay aada u fadli badan oo qof walba aanu gaari karin. qof walboo mu'mina iyo gabar walboo mu'minadana, nin walboo arday ah iyo qof walboo arday ah oo daalibulcilmi ah inuu ku dadaalo noloshiisa bilowgeeda, inuu ku dadaalo inuu naftiisa ku layliyo oo ku tababaro inay barato habeenka inay ka adkaato. haddaanay habeenka ka adkaan, shaydaankana kama adkaan karto, nafteedana kama adkaan karto. nafka daalibulcilmiga ama daaciga haddaanu bilowga noloshiisa ku tababarin salaatuleylka iyo qiyaamuleylka, waxa aayaduhuna tusayaan, axaadiistuna na barayaan inaanu ka adkaan karin nolosha naftiisa iyo shaydaanka, inaanu ka adkaan karin. waxayna tusinaysaa shahawaadka adduunkana inaanu ka adkaan karin. waxayna tusinaysaa cadowgiisa inaanu ka adkaan karin. waxayna tusinaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cawn adag iyo gargaar adag inaanu ka heli karin haddaanu xiriir la lahayn alla subxaanahu wa tacaala gaar ah oo weliba habeenkii ah haddaanu la lahayn. aayaadka qur-aankaaynu hadda akhrinay
سورة المزمل إيو آيات إلهي جنة سبحانه وتعالى وقابل سورة الذاريات إيو آيات الله سبحانه وتعالى النبي سورة الإسراء وقبل قاضيب ساسينة السنية صدح حديث النبي عليه الصلاة والسلام وشيء قيام ليلك وحوي maalin maalmaha ka mida nabigu calayhi salaatu wasalaam sida uu warinayo abi malik al-ashcari nin la yiraahdo saxaabiya wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam inna fil jannati la ghurafan jannada guryo ayaa yaalbi ghuraf guryo weeyaan guryo aad u qurux badan yura zaahiruha min baatiniha wa baatinuha min zaahiriha guryahaas banaanka markaad joogto gudaha waad arkaysaa muraayad iyo luul waxa weeye guryahaas aad u qurux badan oo aad gudaha ka arkayso wixii ku jira banaanka markaad joogtana wa yura baatinu zaahiruha min baatiniha gudaha dibadda markaad joogtana aad arkayso banaanka wixii yaala haddaad gudaha joogto markaas la yaabay asxaabtu ridwaanullaahi calayh lan guryo dhagaxa iyo guryo dhooba ah iyo guryo maaratay bal iyo qoryo laga sameeyay arkayaan adduunyada قالوا لمن يا رسول الله لمن هذه الغرف قريها يا اسكاله رسولك الله النبي عليه الصلاه والسلام صدح الريموت بكوشة دقيسته لمن أطعم الطعام لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس النيام صدح بقى اسكاله بيري صدح صفات ضدك كسفوا به رجل يضمر وحيهين ايا قريها اسكاله وضدك راشنك قوديه ضدك وحسيان ويقوديان مرتي يصعطو يقف مسكين يقف باعن يقف مرتي قري راشنك عاد بي قوديان افورنت يا رمضان هذا غير كذبه هذا الكودن وناجيان اطاب الكلام هذا الحن وجرح له كما صبحه معي تمان ما أفحما ما وهذا المعان وناكسن بيكون الله وحسان وطيبة هذا كذا كمدران قفنا هذا كمدرو هذا الحن مشاغو أفكيس كأذجي عرب كيس كأذجي هاي بمن أطاب الكلام وهلا هذا القروح بدنه فن بكو هلا وصلى بالليل والناس النيام هبين كينا تكذي يدو دتك هردان حل دتك هردان taas ayaa xoojinaysa inaan leenahay salaatu leylka ama qiyaamka ama tahajjudka waa soo kicitaan hurdo kadib haddii kaleeto imtixaan kuma jiro adaygna kuma jiro qofku calo inuu seexdo laakiin hurdadu ka soo kaco isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa agtiisa yaalla xeerinaya oo rabo xadiiska labaad nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka warinaya cabdullaahi ibnu salaam saxaabigaas ah culimadii yuhuudda ka mid ahaa soona islaamay wuxuu yidhi nebigu calayhi salatu wasalaam markuu madiine yimi dadka ayaa injafala annaasu ilayhi dadkii baa u soo kacay way ku soo dideen markay ku soo dideen ayaan aniguna soo kacay waan fiiriyey dadkii buu la hadlaayey wejigiisaan fiiriyey facaraftu ana wajhahu laysa biwajhi kaadib wejigiisa waxaan gartay buu ila waa nin caalimo kutubtii hore wax ka yaqaana wejigiisu inaanu been low ahayn ayaan fahmay buu yidhi markaasuu hadalkii ugu horreeyey dadka ku yiri wuxuu ahaa ayuha nnaas afshu salaam waطcimu الطacaam wasiluu اlarxaam wasalluu bاlleyli wاnnaasu الniyaam tadkhulu اljannata bisalaam ayuha nnaas dadyo dhegaysta oo maqal afar arrimood baa laydin sheegay afshu salaam salaanta fidiya salaantu waxay keenaysaa maxabo adiga dadka walaalaha muslimiinta ah isjeclaan bay keenaysaa kalgacal bay keenaysaa xumaanta iyo dhibkii iyo cadaawaddii bay meesha ka saaraysaa dadku haddaysa salaamaan keliya iyagoon waxba ka wada hadlin waxay ku muransan yihiin xataa iyagoon ka wada hadlin haddaysa salaamaan keliya waxa weeye dadkaas nabad baa ilaahay dhex dhigaya iyo kalgacal afshu salaam wa atcimu الطacaam raashinkana quudiya waa xadiiska labaad uu ka xusan tahay أطعموا الطعام وصلوا الأرحام قرابة حريرية وصلوا بالليل والناس النيام هبينكي تكذا مركدتك هردان تدخل الجنة بسلام حديث كصدحات النبي عليه الصلاة والسلام وحليه حديث غير ويه 3 درجات صدح الرماد ودرجات كر إلهي سبحانه وتعالى وماذا وجنة كر وقاضه درجات كوذا ما حيث هاي إفشاء السلام
وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس النيام. waxa weeye salaada habeenkii dadku tukadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala darajaadkooda kor ugu qaadaa, raashinka ay quudiyaan, salaanta ay fidiyaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasuu qur-aanka ugu xusay dadka quratu cayn gaar ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u siinayo. nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa waxaa ka mid ahayd maalinta jumcada ah salaada fajarka wuxuu ku tukan jiray 2 suuradood oo ka sugan nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu laazimi jiray, sida anas radia allahu canhu uu leeyahay kama tegi jirin buu nabigu calayhi salaatu wasalaam suuratu saajida alif lam mim tanziil iyo suuratu hal ataa cala alinsaan. suuratu alif lam mim sajda iyo suuratu hal ataa cala alinsaan xiinu min addahr alinsaan. labada suuradood culimmadu waxay yidhaahdeen muxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam labadan suuradood ugu tukan jiray salaada fajr yowm aljumca maalinta jumca. horta awalan waxaan ognahay salaada ugu fadli badan cala aliطlaaq waa salaada fajrka oo jamaaca lagu tukado maalinta jumcaha. afdalu salawaati wey, salaada ugu fadli badan weeye salaadaha. maxaa yeele salaada fajr salaadaha way ka tilmaamanta wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kana mashhuudan. waxay yidhaha culimmadu salaada fajr yani waa mashhuud, malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka qayb gelaysa oo ka markhaati kacaysa. salaada fajr markay saa uga tilmaaman tahay salaadaha ayaa maalinta jumcana markay dhacdo maalin jumce ayay maalinta jumcana maalmaha ugu fadli badan tahay. yowm aljumca afdal alayaam waa ciidii muslimiinta, waa maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadan uu u qariyey kana ilduufiyey yahuud iyo nasaara laga ilduufiyey. maxaa yeele way naga dambeeyaan annaga jumcada markaan ciideenna ay tahay oo fasaxeenni ay tahay oo maalintaynu ciidayno ay tahay isu imaanayno. yahuud waa naga sii dambaysaa, waa sabti. axadna waa nasaara oo kasii dambaysaa. marka annagu waa ka dambaynay, zaman ahaan waan ka dambaynaa. saas darteed buu nabigu alay sl slam wuxuu yidhi naxnu alaakhiruuna alawaluun. naxnu alaakhiruun, zaman ahaan annagaa dambayna, laakiin xaggii fadliga iyo jannada annaga uga horeyna. maalintii jimcana saasaan uga hormarnay oo aan fasaxa uga hormarnay. nabigu alay slat slam labadaas suuradood marka waxay yidhaha culimmadu wuxuu ugu tukan jiray horta maalinta qiyaamadu inay kacayso maalinta jimcaha ayaa axaadiista ku sugan. wuxuu rabay nabigu alay slam labada suuradoodba qiyaamaha waa lagu sheegayo inay dadku xusuustaan, aakhiro inay xusuustaan. labada suuradoodba aakhiro way ka hadlayaanoo aakhiro iyo waxaa jira janno iyo naar waxaa jira ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamayaa oo mid walba jannadana waa lagu faahfaahiyey, waxbaa lagaga sheegay, naartana waxbaa lagaga sheegay. labada suuradood mid walba ilaahay dadka mu'miniinta iyo gaaladaba uu ku sifeeyey camalkooda oo qola ilaahay subxaanahu wa tacaala oo adeecsan habeenkii tukanaysa, ilaahay baryaysa, u khushuucsan oo u khuduucsan way qolo ilaahay subxaanahu wa tacaala beenisay oo ku gaalowday way faasiqiinta iyo faajiriinta iyo kafaradu. marka dadka mu'miniintana maadaama qiyaamadiina soo dhowdahay, jannadii iyo naartiina albaabadoodii lasoo furay, waxaa la leeyahay dadka mu'miniinta ku biira oo xusuusta. labada suuradoodba qiyaamuleylka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xusay oo waxyaalaha jannada lagu kasbado. labada suuradoodba ilaahay subxaanahu wa tacaala quratulcaynka uu huwinayo ama u qariyey dadka mu'miniinta ee asxaabuleylka ah habeenkii soo kaca. labada suuradoodba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xusay, aad bayna ugu xusantahay. haddaynu wax yar ka qaadano masalan aynu dhegaysano aynu fiirino aada u ta'amulno maxaa nabigu calay u laazimi jiray uga hadli jiray sida ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu xusayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. labada suuradoodba waxaa ku xusan in ilaahay subxaanahu wa tacaala insaanka uu uumay. insaankana waxaa la abuuray maalinta jimcada sida ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigu calayhi salatu wasalaam nooga sheegay oo maalin jimca ayaa nebi aadam calayhi salaam la abuuray. maalintaasaana jannada laga soo saaray, maalintaasaana qiyaamadu kacaysaa, waa maalinta jimcada fadligeeda ka mid. ثم الذي خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. waxaan arkaynaa alla subxaanaه wa tacaala inuu dadkaas dhinacyadoodu habeenkii ay ka soo tooseen uu leeyahay alla subxaanaه wa tacaala تتجافى جنوبهم عن المضاجع xaalkoodii buu fasiray alla subxaanaه wa tacaala noo sifeeyey sababtana waa noo sheegay oo yadcuuna rabbahum khawfan wa طamacan ilaahay subxaanaه wa tacaala ayay sabab uga dhigaan inay ka baqayaan allana ka rajaynayaan janno wixii ay haysteenna waxbay ka nafaqaynayaan
saas darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu abaalguday falaa taclamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurati acyun. marka culimmada qaarkood waxay leeyihiin dadka ahluleylka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala quratu cayn ay ku farxaan ayuu maalinta qiyaamo alla subxaanahu wa tacaala u qariyey oo aan cidina arag ayuu alla subxaanahu wa tacaala siinayaa oo jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu qariyey maadaama iyaguna habeenkii salaadooda ay qarinayeen oo ay dadkoo hurdo tukanayeen oo ilaahay baryayeen u soo jeedeen oo hurdadoodii macaanayd iyo gogashoodii iyo raaxadoodii uga tageen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala taas ugu abaalguday. suuradda labaad lafta nafsa shay ilaahay subxana wa tacaala saas oo kale ayuu ku xusayaa waana ku aragnay alla subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahay acuudu billahi min ashayطaani الrajiim hal ataa cala اlinsani xiinu min addahri lam yakun shayئa madkuura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى الله سبحانه وتعالى وكيراده إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إلهي سبحانه وتعالى يراهدو si aad arrimahaad u hesho oo ilaahay subxaanaه wa tacaala jannadaas iyo xariirtaasi ku huwiyo udkur isma rabbika bukratan wa asiilan galab iyo subaxba ilaahay xus habeenkiina wakhti dheer ilaahay u sujuud oo u soo jeed oo u kac marka dadka mu'miniinta ilaahay wuxuu ku sifeeyey inay qur'aanka u soo jeedaan inay sujuud dheer leeyihiin inay qiyaam dheer leeyihiin oy taagan yihiin inay rukuuc u dhaxeeyaan intaas inay habeenkooda ku bixiyaan sidaa yiraahdeen culimadu ilaahay subxaanaه wa tacaala marka uu leeyahay yani wاladiina yabituuna lirabbihim sujadan wa qiyaaman yani kuwa ku barya habeenkoodii oo ku bixiyey inay u dhaxeeyaan ilaahay subxaanaه wa tacaala iyagoo u rukuucaya ilaahay subxaanaه wa tacaala iyagoo u sujuudsan ilaahay subxaanaه wa tacaala iyagoo u taagan sida uu alla subxaanaه wa tacaala uu qur-aanka ku sheegay marka imaamu tabari wuxuu leey waxay ka dhaxeeyaan rukuuc iyo sujuud iyo qiyaam iyo qiraa'atu qur'aan bay habeenkoodii uu ku baxay iyo duco ay ducaysanayaan oo ilaahay subxaanaه wa tacaala baryayaan inahaas waxay aniga ila tahay qur'aanka inay qofku hadduu aada ugu noqdo uu arkayo calaamo weyn oo qur'aanka ku jirta oo ah habeenka iyo dadka mu'miniinta rag iyo dumarba waxaa ka dhaxeeya cilaaqo gaar ah cilaaqadaas oo ah inay habeenkii ilaahay baryaan arrinkaas wuxuu u baahan yahay jihaad wuxuu u baahan yahay dadaal wuxuu u baahan yahay nafbarid wuxuu u baahan yahay nafta oo lala diriro waxay ila tahay
arrinkaas haddaad qur-aanka dib ugu noqoto wanaagiisa iyo nicmadiisa wax badan ayaad ka arkaysaa. axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam qaarkood haddaynu u noqonno iyo siduu uga digay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofku inuu qiyaamo leylka ka tago ama u nacbaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ama da'bigiisa noloshiisu say ahayd haddaynu wax yar ka fiirino. nebigu calayhi salatu wasalaam sida abu hurayra uu ka warinayo wuxuu leeyahay afdalu siyaami bacda ramadaan shahrullahi almuxaram wa afdalu salaati bacda alfariida salaatu lleyl. imaam muslim iyo abu daa'uud iyo nisaa'iba way warinayaan. wuxuu leeyay nebigu calayhi salatu wasalaam ramadaan kadib soonka waxaa ugu fiican bisha muxaram, salaadana fariidada kadib midda waajibkaa kadib salaatuleylka ayaa ugu fadli badan. cabdullaahi bni cumar radi allahu canhu sida uu ka warinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii aan soo sheegnay oo abu malik uu sheegay isaguna waa ka wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu alla subxaana wa tacaala guryo jannada ah u ballan qaaday dadka habeenkii salaada tukada. jaabir radi allahu canhu xadiis saddexaad wuxuu nebiga calayhi salatu wasalaam ka warinayaa sida saxiix muslim ku qoran. wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu ina fi lleyli habeenka waxaa ku dhex jirta la saacatun saacad baa ku dhex jirta laa yuwaafiquhaa ma waafaqayo rajulun muslim qof muslimi ma waafaqo yas'alu allaha weydiisanaya alla subxaana wa tacaala khayran khayr weydiisanaya min amri dunya waalaakhira arrin aakhiro ama arrin adduun ilaahay weydiisanaya ilaa acطaahu iyaahu. nicmadaas maxaa ka weyn? qofka mu'minkaa wuxuu haystaa habeen walba, gabadha mu'minadda waxay haysataa habeen walba ilaahay subxaana wa tacaala saacad ku jirta waqti. saacad waa waqti maaha saacadda 60 daqiiqa aynu naqaano. saacad waa fatra min azaman, way noqon kartaa waqti ka dheer waqtiga yani saacadda aynu u naqaan oo 60 daqiiqa, ama way noqon kartaa ka gaaban. yani waa waqti habeenkii ka mid ah oo ilaahay subxaana wa tacaala qof kasta oo muslima oo wax weydiisanaya khayr adduun iyo aakhiro ilaahay subxana wa tacala ilaa acطaahu iyah wadalika kula laylatin habeen walbow. saas darteed walaalaya ayaa nebiyadii iyo dadkii saalixiinta ahaa waxay ahayd caadadoodu wakhtigaas inay ilaahay wax weydiistaan oo xataa maalintii waxyaalaha dhaca habeenkii ay u dibdhigtaanoo habeenkii ay weydiistaan. marka uu leeyahay nabiyullaahi yacquub awlaaddiisa ay dhaheen ya abana astakfir lana dunuubana, wuxuu ku yidhi fasawfa astakfiru lakum rabbii inahu algafuur raxiim. culimo badani waxay ku fasireen wuxuu yidhi waa ilaahay baan dembi dhaaf idin weydiinaya yani habeenkii marka aan usoo tooso oo salaatuleylka ay tahay oo waqtiga ilaahay subxana wa tacala samaa dunya usoo dego ilaahay subxaana wa tacaala oo uu wajibayo saacadahaas uu dadka mu'miniinta ah uu alla subxaana wa tacaala eegayo kuwa u soo jeeda ee uu ajiibayo waqtigaasaana ilaahay idin baryayaa bay culammada qaarkood ku fasireen. sidaasoo kale waqtiga uu zakariya ilmala'aanta u ahaa ee ilaahay subxaana wa tacaala u baryayey waxay culimmadu ku tilmaameen inuu ahaa waqti salaatuleylkiisa iyo mixraabkiisa isagoo ku tukanaya masaajidkiisii ama meeshii uu ilaahay ugu cibaadaysanayey inuu ilaahay subxaana wa tacaala nidaa aan cidina waxba ka ogeyn inuu ilaahay subxaana wa tacaala u yartay. waa kan ilaahay subxana wa tacala noogaga sheekeeyey siduu ilaahay u baryay habeenkii. kaaf haa yaa cayn saad dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ilaahay subxana wa tacala ayuu hortaagay dadka mu'miniinta marka waxay leeyihiin habeenkii inay ilaahay la showraan, habeenkii inay ilaahay hor istaagaan, habeenkii ilaahay xaajaadkooda u bandhigtaan, ilaahay subxaana wa tacaala cabsida ay ka qabaan naartana ay weydiistaan inuu ka magangeliyo, jannada siday u rajaynayaan inay ilaahay subxana weydiistaan. waxa kasta oo khayr adduuniya khayr aakhiraba wakhtigaasay ilaahay subxana wa tacala hor dhigaan, ilaahayna subxana wa tacala u ajiibaa. qofka mu'minka oo xiriirka tooska haysta sidee buu u noqon karaa qof go-an? sidee buu u noqon karaa qof xiriirka ilahay subxana ilaa inuu isagu yahay qof maxruuma oo ilaahay subxana wa tacala xiriirkiisa gooyey oo aan la lahayn xiriir inuu noqdo maahayn. sidee buu u noqon karaa? sidee buu u noqon karaa qof go-an? qofka ilaahay subxana wa tacala xiriirkaas la leh, ilaahay subxaana wa tacaala u naxariistiisa wakhtiga uu fidinayo, raxamaadkiisa ilaahay subxana wa tacala uu siinayo ayaa qof walba oo mu'mina u furan
هدا كجار وهدي الهراء سمين جرتنا الحمد لله رب العالمين هداني سمين جرنا عادة هذا أنا أهينا قوي مع صدي واحد كسر جده يهابينك واحد كسر وقتها كله من إلهي سبحانه وتعالى هر استاج وإلهي سبحانه وتعالى بري وإلهي دمت هذا أشياءه الملآن هداتاي أشياءه الملآن هداتاي أشياءه تبريران هداتاي أشياءه قرقال هدا أباهنته ورصه إذا هدا كبقيسه ويديسه حاكا ارتاقا هبينك إنا إلهي لفقضه وإلهي حاجة أديبته ساسي يلي جرين تدقى المؤمنين إلهي سبحانه وتعالى سنة وغشاقين النبي عليه الصلاة والسلام سيها حال كيسو هبينكي سيدابوها عائشة رضي الله عنها أيام كور سنينا إذا نشيكيس أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وحيلا هاي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نباويمي عبد الله بن أبي قيس ليراضو رضي الله عنه قالت وحي كتري قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل نيو هدافن قيام الليل هدافن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه نبي عليه الصلاة والسلام كما تجرين بيترين وكان إذا مرض حتى هدو حنون صدوه أو كسل أما أحوغ عاجسه صلى قاعدا سقو فرديه بتكون جري هبينك صلاة النافلة أنا وفرنتها هبينك إن تكون كرو عضو فرديه إمام أبي داود باكورنا إياه سنن تيسا نبي عليه الصلاة والسلام كان هبينك تكون وكدقي وحكيري عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله يو لا تكن مثل فلان هبل أوكلها النقن كان يقوم الليل فترك قيام الليل هبين كيف تكنجريه وسكتجيما وسكداي إمام بخاري ومسلم باورينا يعني من كان النبي عليه الصلاة والسلام دليل بأسود جدينا يا أرج أو إنه هبين كي تكنجريه وكتجي من كان نوح لي الله من نقن هبين كي النبي عليه الصلاة والسلام سيء تكنجري عبد الله بن عباس ويدين رضي الله عنه وحليا بنت عند خالتي ميمونة هبريتي ميمونة أيان هبين لبريي والنبي صلى الله عليه وسلم عندها هبينك كلتن كذا بيها هيدو حاسسك النبي عليه الصلاة والسلام مدام يكمل هاي فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحلو الرمي مع أهله حاسك سيبو عبار لشاكيستي ساعة وقتي ثم رقد مركز ساحضي فلما كان ثلث الليل الآخر هبينك قيبتي سيدا ما صدح ميراضا ماشي قدام ميسي مركي أهيد أو بعضهم أما قيبتي سكمدة قعد فنظر إلى السماء وفريست النبي عليه الصلاة والسلام وفريستي فنظر إلى السماء صمدوا آجي النبي عليه الصلاة والسلام قريه يرير بها يريد الله صوب عمر كيبا صمدوا آجي مركز آخري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا سوء أخري النبي عليه الصلاة والسلام حتى ختم سورة آل عمران خواتم كذا إلى ختمي ثم قام إلى القربة مركاسو قربة كيبو تجي بيو كشبتي فألق شناقها كيبو فري ثم صب في الجفنة والكي ويسي سنجري أيو كشبتي كلحي بيو كشبتي كلحي مركاسو قاطي فتوضع وضوءا حسنا ويسأت ونكسن قروح بضا أيو ويسيست النبي عليه الصلاة والسلام لم يكثر وقد أبلغ فقام فصلى مركاسو استاغيو وتكدي فقمت أنا وان استاغي وتوضأت وان ويسيستي وويل ير وكريه طبعا جرا مركاسان أنا ويسيستي فقمت عن يساره بدحديسان سو استاغي بدحديسان ما هو قرنين بدحديسان سو استاغي فأخذ بأذني دكتيدو قبطي أو إسوق قبطي فأدارني عن يمينه ملكتي سوء كاني لنعيسى ملكته أي النبي عليه الصلاة والسلام سترتيبه وسو استاجي ويلك صلاة الله بري صلاة قيام الليل ضدك ساكو سوق قريب حين قندونا بارك الله فيكم عن يمينه فتتامت صلاته ويكون ما يسترنتي وصلاة اسكن ما يسترن يكون ما تي 13 ركعة صدح يتبرك عضاد أيوتك النبي عليه الصلاة والسلام ثم طجع مركاسو دنعا دقي
أو دولك حوغا يرسحدي فنام حتى نفخ وسحدي إلى نفتس أي صباحه أما خرديس أي صباحه وكان إذا نام نفخ هدي ومركز سحدنا ولا مغرب جري نفس كيسا أما خرديسا فآذنه بلال أي أمارة مركز صلاة فجر وقوي من النبي عليه الصلاة والسلام فصلى ولم يتوضأ يعني وقع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة بتكذي يعني الناف أي أمارة كسب بعد صلاة آد وقومه مارة هرده ومصلحا حوغا ير ونصشاء أي مارة النبي عليه الصلاة والسلام إن ير أو صلاة الليل كي أفو يساسي وقود يرقروا صلاة فجر مرمرنا ساس ويلجر النبي عليه الصلاة والسلام إنه بنا عوسح صلاة الليل كمركي وكرنا بماضه سي حوغا نصشير وقول نقطه أو مارت صلاة الفجر وسن شاض له وقلت كذا ولم يتوضأ وكان في دعائه دعوي لي سمركو بحي وقري كبحي وحكم لها اللهم اجعل في قلبي نورا إله قلبي نور كيال وفي بصري نورا إله النور كيال وفي سمعي نورا دقه مقل كي إله النور كيال وعن يميني نورا مدكتيد إله النور دك وعن يساري نورا بدحتيد إله النور دك وفوقي نورا كركي إله النور دك وتحتي نورا هوستيد إله النور دك وأمامي نورا هرتيد إله النور وخلفي نورا قلاشيد إله النور دك واجعل لي نورا إله النور إيال الله سبحانه وتعالى نور ينصير وزاد بعضهم وفي اللسان نورا عرف كيغا إله النور صار وذكر وعصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري انت أصبح والله حصي يضنا رواية كان واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وفي أخرى لمسلم إمام مسلم رواية الأولية اللهم أعطني نورا إله النور إسيه انت النبي عليه الصلاة والسلام صلاة مركي أصاب بحي أيو سيدة أقود عيساني ولا ريال وحضر كيسان مركي جدك أوجد النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب تيسا يستلف كيسا يؤمد تيسا ونأكسن سيدة أيتاي إنه هبينكي إلهي بريان ووقت قاسو كلا أو هادئة أو دقن أو دتكو أنا أركين الله سبحانه وتعالى آدو وحرنا هذا وحليه هاي هبين كلا تسوى كور رمية إنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أي ساحضي فاستيقظ نبي صوكعي فتسوك وتوضأ ولو ديارين جري نبي عليه عضي يجيسا intaanu seexan habeenkii cisha ayaa meel loo sii dhigi jiray weysadiisana meel baa loo sii dhigi jiray dadkii saalixiinta ahaayo kadamiye asxaabtii oo dhanna saasay ahaayeenoo habeenkii waa loo diyaarin jiray inta aanay seexan ay cadaygooda iyo weysadooda iyo xataa qaarkood waxay diyaarsan jireen dhar aad u qurux badan oo ay gashtaan markay salaatuleylka tukanayaan waxaa la sheegay tamiim daari inuu thawb ku iibsaday 1,000 dirham inuu thawb ku iibsaday si uu habeenkii salaatuleylka kaliya ugu tukado oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu hor istaago siday ugu maaragtay dadaali jireen marka uu soo kacay ayuu aayadaha akhriyay suurat al-imran hatta khatama suurah thumma qama fa salla rak'atayn atala fihima ar-ruku' al-qiyam war-ruku' laba rak'adood ayuu tukaday aad u dheer waan garanaynaa habeenkii noocyay u ahayd salaada kolalka qaarkood laba rak'adood ku dheeraado oo 5 juz uu ku tukado afar suuradood ama 3 suuradood uu isdaba dhigo ayuu kolalka qaarkood ku tukan jiray kolalka qaarkoodna uu gogoyn jiray 10 rak'o 12 13 ayuu tukan jiray kolalka qaarkood 5 rak'o oo isku xiriirsan marka arrinkaasna waxa qaacido ah salaatu layli mathna mathna buu yiri nabigu kaleey salaatu salaam salaatu laylku waa laba aad u tukanaysa fa ida khashiya ahadukum al-fajr haddaad ka baqdo waagi inuu kugu bariyana hal rak'o oo ku witr kugu noqota ku tuko ayuu yiri nabigu kaleey salaatu salaam habeenka nabigu marka saas uu ahaa sida Aisha radhiyallahu anha ay ka waramayso xadiiskan ku soo qatimayna habeen leelkiisa soo ahaa nabiga kaleey salaatu salaam nin ayaa weydiiyay Ubayd ibn Umayr la yiraahdo nabiga kaleey salaatu salaam habeenkiisa sidoo ahaa li'Aisha qala li'Aisha radhiyallahu anha akhbirina bi'ajabi ma ra'ayti an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu ugu yaabadna oo aad ka aragtay noo sheeg markaasay tiri cabaar bay aamustay Aisha radhiyallahu anha حلا أمست النبي عليه الصلاة والسلام سوء حسوسية أي لا أمست فسكتت ثم قالت مركز وحيتري لما كانت مركي أهيد هبين من الليالي هبين هذا كم ذا قال وحير يا عائشة مركو قرقي يمين ذريني أتعبد الليلة لربي إضاف عاوة أن إلهي سبحانه وتعالى أعباديسته يعني حقا هذا هيد إضاف عاوة أن إلهي أعباديسته قالت وحيتري والله إني أحب قربك رسولك الله كل وانشهك وانجعلها وأحب ما يسرك وحي كفرح قلنا ينا وانجعلها هذه صلاة كفرح قلنا وانجعلها وحبك من قبه قالت وحيتري فقام استاغي فتطهر مركز ويسيستي ثم قام يصلي مركز استاغي إنه تكذو النبي عليه الصلاة والسلام قالت فلم يزل كما أزول يبكي إنه أويه
isagoo tukanaya xataa balla xijrahu ilaa dhabtiisa ay oohintiisu buuxisay nebiga calayhi salaatu wasalaam. qaalat wakana jaalisan wuu fadhiyey oo fajalasa yabkii falam yazal yabkii kama uu suulin inuu ooynayo calayhi salaatu wasalaam xataa balla lixyatahu ilaa garkiisa ay oohintiisu buuxiso. qaalat uma bakaa haddana wuu ooyey xataa balla alarda ilaa dhulkii u buuxiyo oohintiisu ee dhulku calayhi salaatu wasalaam xataa balla alarda fajaءa bilaalu bilaal baa yimi yu'dinuhu lisalaati salaadii isagoo bilaal uga warramaya nebiga calayhi salaatu wasalaam oo u sheegaya salaaddii fajr loo soo gaaray. falamaa ra'aahu yabkii markuu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu oynaya qaala yaa rasuula allah rasuulkii allow tabkii waqad gafara allahu laka ma taqadama min danbika wama ta'ahara. rasuulkii allow ma oynaysaa adigoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigaagii hore iyo dembigaagiiba dambeba uu dhaafay alle subxaanahu wa tacaala. qaala wuxuu yidhi afalaa akunu cabdan shakuuran miyaanan ahaanayn addoon ilaahay u mahadiya haddii xataa la ii dembi dhaafay. laqad naزlat calaya leyla caaw waxaa igu soo degay aayatun aayad baa igu soo degay weylun liman qara'ahaa wuxuu hoog leeyahay qofkii waxaa hoog leh akhriya walam yatafakar biha oo aan ku fekerin markaasuu akhriyay ina fi khalqi الsamaawaati wاlأrض waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari laaayaati liuli اlalbaab. aayaddii kulligeed ayuu akhriyey ibn xibaan fii صaxiix ayuu ku wariyey waa xadiis xasana. nebigu calayh الsalatu wasalaam marka hore habeenkiisu saasuu ahaa asxaabtiisu siday ahayd iyaguna sidaasoo kale ayay ahaayeen. mucaawiya ibn qura wuxuu leeyay dakhaltu cala alxasan xasan ayaan usoo galay waa xasan albasri taabiciya wahuwa mutaki calaa sariirihi faqultu waxaan idhi ya aba saciid ayu alacmaali axabu ila allahi acmaasha maxaa ilahay ugu jecel yahay qaala asalaatu fi jawfi اlleyl wاnnaasu niyaam. وcan اlawsaaci isaguna taabiciya wuxuu leeyahay balaganii anahu man aطaala qiyaama اlleyl waxaa i soo gaartay yani ama kutubtii ama cilmi hore iga soo gaartay man aطaala qiyaama اlleyl khafafa allahu canhu ywma alqiyaama. qofkii habeenka qofkii soo jeeda oo salaad ku soo jeeda khafafa allahu canhu ywma alqiyaama maalinta qiyaamo ilaahi subxaanahu wa tacaala uu fududeeya. cabdullahi bni abilhudayl wuxuu leeyahy qiyaamu اlcabdi fi jawfi اlleyli ila salaati habeenkii soo jeedka uu salaada u istaago qofku nuurun lahu yascaa bayna yadayhi ywma alqiyaama nuur buu u yahay maalinta qiyaama hogaaminaya dulumaadka marka la joogo ayuu hogaaminaya. yaziid araqaashi wuxuu leeyahay bituuli tahajudi taqaru cuyuuna alcaabidiin habeenkii soo jeedkiisa badan ayaa dadka caabidiinta ahi ay aad u jecel yihiin oo wax kasta uga jecel yihiin. waayo bituuli dama tafraxu quluubahum haraadka maalintiina qulubtooda ayaa ku faraxda. wuxuu leeyahay wakiic xadaثana sufyaan can mansuur can ibrahim kanuu qaliila min alleyli ma yahjacuun aayaddaa markuu fasirayay wuxuu yidhi kanuu qaliila min alleyli ma yanaamuun habeenkii wax yar bay seexan jireen. wuxuu leeyahay ibnu cabaas radi allahu canhu asxaabtii nebiga calayh الsalatu wasalaam isagoo ka warramaya kanuu qala laylatin habeen wuu yaraa bihim ilaa salluu fiiha way tukan jireen asxaabtu. kaana cumar bn khadaab radi allahu canhu yamuru biاlaaya aayad buu soo mari jiray habeenkii isagoo salaada tukanaya sida laga warramay suuratu tuur isagoo habeen akhrinaya watuuri wa kitaabin mastuur ama wuxuu maqlay qof akhrinaya fii raqin manshuur wاlbayt اlmacmuur wاsaqfi اlmarfuuc ina cadaaba rabbika lawaaqic. aayaddaa markuu maqlay dhulka ku dhacay markaasaa laqaado gurigiisuu tegey ayaamaa la soo booqanayay oo inuu xanuunsan yahay loo malaynayay xanuunkaayana wuxuu ah aayaddaa ula xanuunsaday keliya ayay ahayd wax la xanuunsaday radia allahu canhu. marka ayaamo dhan ayaa lasoo booqanaya waan la ogeyn wuxuu la xanuunsaday inay tahay cadaabta ilaahay subxana wa tacala suu iga baqayo. nin baa wuxuu ku yidhi cabdullaahi bni mascuud radia allahu canhu walaalayaal waxyaalaha ina hortaagan weeye inu ogaano maxay naga hortaagay qiyaamaleylka maxay naga hortaagay ilaahay subxana wa tacala maxaan ula lacnahay inaan khalwo la yeelano habeenkii oo aan habeenkii la warrano alle subxaana wa tacaala. cabdullaahi bni mascuud ayaa la weydiiyey su-aashaas wuxuu yidhi nin baa wuxuu ku yidhi ma nastatiicu qiyaama alleyl habeenkii waan soo kici kari la'nahay qiyaama leylkina waan awoodi kari la'nahay. markaasuu wuxuu ku yidhi aqcadatkum dunuubukum dunuubtiinna ayaa meeshaydin dhigtay buu yidhi. nacam dunuubteenna ayaa meeshayna dhigtay wax kale oo qofka hor istaagaya ma jiraan oo ahayn dembigiisa. ina arajula la yuxramu qiyaama alleyli bidanbi yusiibu dembi uu galay ayaa qiyaama leylka uu la weynayaa. salaad fariid uu ka tegey
أما حرام أجي أي لوين يا قيام الليل كي أما حرام هنا أي لوين يا قيام الليل كي أما هذا الحنو قاضي أي لوين يا قيام الليل كي وحلوي دي حسن ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها ضدك محيه ضدك وقرح بدن وجهه وقرح بدن يعني قال وحيري لأنهم خلوا بالرحمن الله سبحانه وتعالى يلك للنقدين فألبسهم من نوره نورا مركز وجهه إلهي سبحانه وتعالى نور هو ساسو لي عبد الله بن المبارك هدي هبينك ومجد نقضه مركز يستاجي الله سبحانه وتعالى مركز هبينك قدومية يجوا ركوع سنة أو سجود سنة مركز يدك أهل الدنيا ده هي أما دك أدونكو مركز يهرد قرر عليهن أو يهرد كجيران سيدا سيوها حال كونه وعنكو سوى ختمية سيدابوها سلك القرآن كسي هبينك وكعجرين وحوي يعني والله يا بيسا النبي عليه الصلاة والسلام إنه سورة البقرة هي سورة آل عمران هي سورة النساء هل ركعوه كتب كذي أرنكاس النبي عليه الصلاة والسلام كدي عجري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مركا هبينك قرقي صلى الله عليه وسلم أصحاب تقاركود ويدقي سنجرين شام مركو تقو أماء تقو يمن ساسو كري ودقي سنجرين هبينك قيام الليل كيس مركا يسوي مالين إساقا إيو معاذ بن جبلنا وحي يسور صدن هبينك سيديها أدي قيام الليل كابو أنا ما سيكشيكي سنجرين القرآن كهبينك قور ما آخر ذا عامة الصحابة وعامة السلف قرآن كوحي أخرين جرين هبين كبير أخرين جرين صلاة دينكو أخرين جرين وأنا مدة أود حيسا إنك إيه قرونتان إنك إيه إنه أود حيسا وأوحى إنه إنه خلافك إيه دبك إيه دنبك إيه كالتك إيه إسنحيبك إيه صبر لأنت إيه وحصدنا عذر رضا صدنا إنك إنه قبدينهن إيه إيه أقول يرايين صوابته وحي تاي قلبي وضع إيه آخرك وحرمي جنة الضرب كذا كحرمي نارت عذابته iyo ka baqideedu ku xirmay halkaasay ku xirnaayeen halkaasay habeenku ku xirnaayeen saas darteed maalintii ismay dagaali jireen annagu laakiin habeenkani waa habeen baas habeenkani waa habeen baas markuu noqday maalinteeni buu raad ku yeesho maalin baas bay noqotay oo la isdagaalo maxaa dhacay ninkii islaantiisu ma heshiin karaan wiilkii oo walaalkiis ma heshiin karaan labada saaxiibka ama walaalaha ma heshiin karaan siyaasad lagu ma heshiin karo oo xoolo lagu ma heshiin karo مسجد حتى لو واحد لو يشين كلام جيران صوتهم حيتها dadka habeenkooda habeen baas noqday habeen baas markuu noqdayna qalbigoodii baa qalalay qalbigoodii markuu qalalayna Allah subhanahu wa ta'ala meel ku baayaan iyo meel ku baayaan danka malaha waxa laga sheegay Abu Ishaq as-Sabi'i waa nin culimadii salafka hadiiska ee kamid ahayd wuxuu yiri waxa la weydiiyay Sheekh Abu Ishaq maxaa ka soo haray baa leeyahay nin weyn oo daah baa noqotay hadda yani aad buu cad u noqday oo habeenkii xataa ilaa la istaajiyo ما استاي كريجرين سي كليجيس مركز وحير والله تبرتي واد دماتay dhalinyarnimana waa tagtay hadda habeenkii kuma tukan karo illa suuratul baqara iyo al imran ma hina wax kale kuma tukan karo habeenkii wax kale aan akhrin karo malaha bayra marka inta la istaajiyo ayaa kor loo qaadi labada garab laga galo garbaha laga gala la istaajin jir markii uu aad qumaati u istaagana ما الركوع جرين بالي إلى سورة البقرة وختم سورة البقرة مركو ختم بالركوع جري عبادة ظهور تساسعد دمر كلفتي وهذا ساسعد قبر صالح حدا قبلها سكملة أي أنك هذا هبينك حراتك كل فتين مركز سيتري ورككع وحا إلهي سبحانه وتعالى يا ملائكته سبك حشودين وضلك صار أنت كحشودين خورا هذا بدن بالله حشودين بترككع ككع وإلهي سبحانه وتعالى أتوكه مركز حراتين تقول فتين أيضا الصلاة دي تكنيسة أي سجن الصلاة دي أوكعسي سدا سي هبينك إلهي كود بريه waxaan isweydiinayna maxaa ku sahlaya inaad ku kacdo awalan maalintii horta ilaahay caasin oo macsiya iyo macsida iska dhaw thaniyan maalintii isku day inaad qeylulad qaadato ama waqti yar aad ka seexato walaw nus saac ama rubuc saac si habeenkii wax ku tarto thalithan habeenkii goor hore inaad seexato raabican arrinka afraad waxa weeye inaadan habeenkii cunto aad u culus aadan waqtigaad seexanayso aadan cunin si aynan habeenkii kaaga baahin salaada ayaan kaaga bixin سادسا وحوي إناد نيستو إناد سوق عيسو حتى نيادها اسمها إلهي أجر كوكسين إياه أرنكا شناد وحوي أما اللي حد إناد وقت وحكو سوق عيه آسما يستو أما عيد يعني مارتك سوق عيسو أو خيرك تجعله سوق عيسو أما ساعدها يحيالها اللي بحسدو إناد كترك شو أرنكا تضباد وحوي إناد أخرضه سيردي يسلفكي رضوان الله عليهم سيدي يوكو عجرين أما هبين كودو سيدو وأها إناد كأخرسو كتبت التاريخ ذا سيدا يقول قرنتاي أو واحد بدنا أتكاخسه أرمها صدًا وحكينية
inuu ilaahay subxaanahu watacaala kuu fududeeyo oo shaydaan kaa celiyo oo alle subxaanahu watacaala uu ku soo kiciyo. nin ayaa weydiiyey xasan albasri radia allahu canhu, wuxuu ku yidhi xasanow habeenkii ma soo kici karaa sideen yeelaa? wuxuu yidhi maalintii ha caasin, isagaa ku soo kicinaya habeenkii insha allahu tacaala. marka wakhtigii halkaasuu ku dhammaaday insha allahu tacaala. waxaan ilaahay ka baryayaa walaalayaal inuu naga dhigo kuwa ilaahay subxaanahu watacaala xiriir la leh, xiriir gaarana la leh, ilana subxaana watacaala barya. saacadaha ilaahay subxaana watacaala nusuulkiisa ee habeenkii waana waqti aan soo noqonayn, oo hadduu ku dhaafo dib aan kugu soo noqonayn weeye, ma soo noqonayo mar dambe. habeen walbana haddii aad maarata si fiican u kacdo, xataa culimadu waxay yidhahen habeenka dambuu la sii hadla ila war ninkaasu nin fiican buu ah ama qofkaasu qof fiican buu ahay, u fudaydi adiguna oo habeenyahow habeen fudud u noqo ayay yidhahdeen. xataa habeenadii ayaa isu kaa maaragtay dardaarmaya. maxaa yeelay waxaanu dhamma khalqi ilaahay subxaanahu watacaala weeye oo markhaati maalinta qiyaama kuu noqonaya. marka inaynu ku dadaalno. midda ugu dambaysa oo dhegteenna aan ku xirayo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala inta aanu salaada waajibin oo soonka waajibin oo jihaadka waajibin oo amri bilmacruuf waajibin oo nahyi can ilmunkar waajibin, waxaasoo dhan faraa'idda intaanu waajibin ayuu alla subxana watacaala qiyaama leylka waajibiyey. culimmaduna waxay yidhahdeen sababtu waxa weeye maxaa yeelay bani aadamkan qalbigiisa haddaan la hagaajin waxba uma hagaagi karaan. saas darteed ayaa awalan ay soo degtay yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliilan iyo aayaadka makiga ah ee ka hadlaya qiyaama leylka. kadib madiina marka la yimi iyagoo dadku diyaarsan oo quluubtooda ilaahay subxana watacaala uu si fiican u soo jilciyey, la soo tarbiyeeyey, quluubtooda lagu xiray ilaahay subxaana watacaala ayaa markaa takaaliiftii iyo adduunyadii lagu sii daayay inay xukumaan. markaasay quluub iimaan ka buuxda ayay ku xukumeen adduunyadii. laakiin markaynu inagu adduunyadii ku xukunno quluub khaawi ah, meel walba waa iskaga hor imaanaynaa, adduunyadana waa iska hor daba imaanaysaa. nasal allaha tabaaraka watacaala an yuwaffiqana wa iyaakum ila kulli khayr. ilahay waxaan ka baryaynaa annaga iyo walaalaha muslimiinta waynu noo dambi dhaafo. allana subxaanahu watacaala ilaahay subxana watacaala uu naga dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا واجبر كسرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ونسألك الرضا يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك أن تذيقنا لذة الليل وعبادة الليل إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك شيخنا الشيخ محمد إدريس. محاضرة قيم كهاد قيام الليل ككسابسا إلى أن نقدق كوان توبة تيرة توصلنا قاطع إن شاء الله. واحد سؤال موضوعا مجران إن شاء الله waxaan rabaa dhowr qof oo xanuunsan asbaabo kala duwan dalbanayo duco in loo duco inaan sheego. halkan qofaa soo qoray wuxuu yidhi sheekh waxaa iga xanuunsan wiil aan dhalay hal igu duceeyo. qof kalena waxa uu yidhi sheekh waxaan ahay qof weyn oo aan xanuunsana ii soo duceeya. qof kale wuxuu yidhi adeerkay ayaa kansar ku dhacay, dhakhaatiirtana waxay yidhahdeen 6 bilood gudahooda qofkaasi wuu ku dhimanayaa, haddana aad buu uul daran yahay. ilaahay subxaanahu watacaala u soo barya. qolo kale iyagana soo qoray warqadda waxay yidhaahdeen sheekh waxaan haysatay dhibaato, weliba hooyo weeyaan. waxay tidhi mar kasta aan uur yeesho ilmuhu 6 bilood kadib way iga soo dhacaan. hadda xataa dhawaan waa igu dhacday ii soo duceeya inuu ilaahay subxaanahu watacaala ilmaha ii adkeeyo, ilaahay ilmo baaraysiiye. qof kale waxa uu yidhi marka qaarkood cibaadada ayaa igu adag, salaatooda iska dhaafa xataa salaadaha caadiga ugu adag. waxaana qof xaamilo ah waana umuri rabaa dhowaan. waxaan jeclahay inuu ii soo duceeyo inuu ilaahay subxaana watacaala salaadaha ii fududeeyo, umushana ilahay inuu ii fududeeyo. qof kale iyadana dumar ah waxay tidhi waxaan aad ugu dhibaataysanahay xagga xanaaqa, waxaan jeclaan lahaa inay culimmada ii duceeyaan. rag kale iyagana waxay codsadeen in loo duceeyo oo dhibaato weyn ayaa waxaa ka haysto xagga dhaqaalaha. iyagana waxay leeyihin noo soo duceey. nin kalena wuxuu leeyahay halkaa warqad ku soo qoray caruurteeda waxaan ilaah uga baryayaa inuu ilaah baari nooga dhigo, noo duceeya. ugu dambayntii iyagana waxaa jira owlaad ilmo yar oo shadan halkan laga sheegay oo indhala-aan ah in ilaahay subxaanahu watacaala ilaah loo baryo iyaga iyo waalidkooda. warqadan kalena dad badan oo iyagana cudurka kansar ku dhacaya aad ugu badan hadda waddanka Norway.
weliba labada bil ugu dambeeyay in ka badan 12 qof ayaa u dhimatay ayaa asbaabo kala duwan ku dhintay laakiin cudurkaas dad badan oo la ildaran yihiin dad badan hore u geeriyoodeen marka waxaan jecelnahay Sheekh Maxamed Idriis wuxuu dhintay iyo dadka nool ee dhibaatada haysata nacab badan ka haysato ina Ilaahay subhanahu wa ta'ala u barisid wallahu ta'ala alam fadl Sheekh Maxamed alhamdulillah horta walaalahay dhammaantoodba Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibkooda ha qaado qof kastoo dhibana waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala وحليها أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون إلهي سبحانه وتعالى استغوي متك أجيب يقفك مضطرك أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض مركا ولا لها لما أنت غضبة إن نفتوض كتر بيان أو نفتوض أي بران إن إلهي سبحانه وتعالى بريان oo waqtiga wanaagsan oo faadilka Ilaahay bariyaan oo habeenkii Ilaahay bariyaan oo salaadaha Ilaahay bariyaan oo Allah subhanahu wa ta'ala bariyada cibaadadu bariyo way cibaadadu waa Allah bariya Ilaahay la bariyo way ad-du'a huwa al-ibadah wa nabiga alayhi salatu wassalam ad-du'a huwa al-ibadah Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu baray adoomadiisa inay weydiistaan ud'uuni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي كواحد هرت ولا الله دكته وحريا وشيغيا ودكته ذكر يا رجل دمر با وحي هذا الله وباهته انت ويسيسته وقبلته وجهسته والله ورع خالص سدا ادو وحد دريميسو عيدنا وما دريمي كرتو إلهي سبحانه وتعالى خشوع وصدقه هذا كهر مرين كرتو كهر مريس واستغفار كهر مريس oo weysada hagaajiso oo haday habeenkii tahay ka si fiican tahay mugdiga ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala qiblada u jeesato Ilaahay gacmaha u horsato Ilaahay ina barido oo Ilaahay subhanahu wa weydiisato oo ku ilhaaxiso oo ducada ku celiso oo aadan ka go'in oo aadan joojin oo aadan hal mar ka dhigin ee hadiye jara ducada saa u badiso horta ina naftaada barto Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax walba adoomadana saalixiinta ah qaarkood waxay leeyihiin iska dhaaf wax weyn parkinka barkiyeriga waxa tiraahdaan hadaan meesha ka waay Ilaahay baan weydiistay Ilaahu barkiyeri Isa Ilaahu xaaskayga akhlaaq dabeecad xunta dabeecada Ilaahu toos yani suuq hadii uu baxo hatta Ilaahay subhanahu wax walba weydiiso Ilaahay subhanahu wa ta'ala warda dabeecada inaan baranno oo nafteena barno shay kasta iyo talaabo walba qaadayso Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaad baran نبي الله إبراهيم سيد نبي الإله أبريين إله سبحانه وتعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يعني ربنا سقال جرب كسعلنا يا رب يعني يهرت إنه ولا الله يوحنا دردارميا إن إلهي بريان أو إلهي بريان يصبديان أو إلهي يجو ضنهض وشيكتان أو إلهي هبينك كقر صدان ضنتهض أن عندنا أجين الله هو الرحيم الله هو قريب الله هو مجيب الله هو ودود الله هو شفيق الله هو شفوق إلهي سبحانه تكون حريص بدن كودو الله سبحانه وتعالى كم غليه كل جيسنيه إلهي سبحانه وتعالى ولا ريال بريا حوي ديسته بني آدم كلا وحيدين تركنا مجرو سيدا أدو آد إلهي أبري كرتو عدكو ترجمي كرتا مجرتو لقضاء دون تكبر أفكار دون تكبري إلهي سبحانه وتعالى يسد تذللي إلهي سبحانه يسد الليل يسبهم به إلهي يسد جبي مركز إلهي سبحانه وتعالى بري وحول بإلهي سبحانه وتعالى وقسين دعاء قفك هيست الباب محاك حرام محاك حرام قف إلهي هيسته وحكا حرام مجران مركز ورتتاسو ودردارا ولا لهي أن لا يهي إلهي سبحانه وتعالى دفتينا هذا الملا أنتهي هذا حوالي أنتهي سنشقنا هذا والبطاي الله سبحانه وتعالى خزائنتي سافرا وبوحده وكسيني نبي زكريا عليه السلام وأجدني سو إلهي أويديستي إلهي نواسيي دعاء المضطر خاصة مركو قفكو دباتيسيها أو يسوي دبت دريمينا ويكسي درنتان قبل أن ننكرهين هذا إلهي ويديستو هبينكي إلهي سبحانه صالح أو سخيري ويلك أنا هيسن إلهي ضربات كاغو الله سبحانه وتعالى هر ديغو ايا له ولا لهي رق يا دمر
gabdho iyo wiilal dhalinyaro khaasatan dhalinyarada waxaan u dardaarmaya dhalinyarada iyo da'yarta waxaan leeyahay haddaydinaan hadda intaa da'yartihiin aydinaan cibaadada qabatiimin odaynimo kuma qabatiimaysaan way adag tahay odaynimo inaad ku barataan ama ku qabantintaan saas darteed ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel yahay dhalinyarada ilaahay subxana wa tacala u cibaadaysata shaabun nasha'a fii taacati illah ilahay saasuu u jecel yahay maxaa dhacay waxa weeye isagoo dhalinyaro ah ayuu qabatiimaya alle subxaanahu wa tacaala shahawaadkii ka tegaya markaasuu ilahay qabatiimaya taalibulcilmi qof cilmi dalbaya oo cilmi raadinaya oo aan habeenkii soo kici karin waxba cilmi ma keeni karo waxna ma tari karo qof daaci doonaya inuu noqdo aan habeenkii soo kici karinna waxba dacwo ma tari karo naftiisana waxba ma tari karo arrinka inaad ogaataan you have to know that arrinka inaad dhalinyarada intaad tihiin aad cilmiga tuurtaan ilahay waxaan ka baryaynaa biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculaa qof kasta oo dhiban dhibka inuu ilaahay ka qaado qof kasta oo dhiban ilahay waxaan u baryaynaa dhibka inuu ilaahay ka qaado kuwa xanuunsan ama cudurrada xun qaba ilaahay cudurka ka qaado ilaahay waxaan u baryaynaa raxmaan raxiimka ilaahay ghafaara dunuubka ah sataaru lcuyuubka ah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay caafiyo oo ceebtooda asturo oo ilaahay subxaana wa tacaala dembigoodaba ilaahay dhaafo waalidiintooda inuu ilaahay u naxariisto kuwa carruurta haysan duriyad saalixa inuu ilaahay siiyo gabdhaha uurka leh ama dhibaataysan ilaahay inuu u sakhiro ilaahay inuu u fududeeyo duriyad khayr qabtana ilaahay siiyo kuwa oberashanada iyo camaliyaadka qaba ilaahay inuu u fududeeyo ilaahay inuu ka kaafiyo ilaahay inuu caafiyo ilaahay subxaana wa tacala caafimaad iyo camal saalixa inuu ilaahay siiyo kuwa cilmiga doonaya cilmi naafica inuu ilaahay siiyo cilmi naafic iyo cibaado saalixa inuu ilaahay subxaana wa tacaala siiyo qof kasta oo muslimana muraadkiisa khayrka ah ee saaxadan fadhiya qaacadan fadhiya ee dhegaysanaya ama maqlaya ama ay gaari doonto inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa khayrka ee qalbigiisa ku jira ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculya dhammaanteenna inuu ilaahay nagu kulmiyo khayrka iyo camalka saalixa iyo wanaagga iyo inaan ku walaalowno oo ku kulanno had iyo jeer isjeclaan iyo iimaan iyo jannada ilaahay subxaana wa tacaala firdowsa inuu ilaahay siduu halkan noogu kulmiyey daacadiisa noogu kulmiyey ilaahay inuu jannaatu lfirdows noogu kulmiyo ceebaheenna iyo xumaanteenna iyo dembigeennana ilaahay subxaana wa tacaala asturo oo dhaafo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi